waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Suweysi su'aalaha waxaan weydiinayaa mataqaana dawladda inta madaxweynaha dalka soo jiray inta madaxweynaha dalka soo jiray ما أنا سؤال شو كويدينا يا روما كسيجي جوابي أنت أصلا كويدينا يا أنت أصلا كويدينا واي هاي دقمة بلعض ما قاعد يهرب له أقون شرا لقارب دقمة بلع أصانه كنا وعند وريال كسر وهذا برنامج كان سويسي سؤالها وعن برشة سؤال كويدينه toddobaadkan uu ka duwan yahay barnaamijku waxa la bixinayaa hadiyado waxaana qayb ka ah oo hadiyadaha bixinaysa Xanaan Beauty Salon hadaba ila socda dhinaca kaamirada waa Cabdiwali channelka ka daawanaysana waa Suweyska Cayte ku dhawaay baa magacaaga Cabdiraxiin waayahay su'aashu waxay ku leedahay imise madaxweynaha soo maray Soomaaliya toban madaxweyne No! halkan waxa ku jira waraaqo waraaqahan haday ku aad mid ku nasiibsanaysid horta mid la soo bax adoo aan kala furin saa u hay hadii ay yaas ku soo baxdo hadiyad baa leedahay haday noo ku soo baxdana hadiyad ma lihid hadiyada haday yaas ku soo baxdo waxa ku siinaysa Xanaan Beauty Salon maxaa ku soo baxay no aye nasiibkaaga waa ku qanacsan waa dhawaay waa magacaaga Abdulis waxa sheegtaa magacii loo aqoon jiray degmada Balcad magacii hore magac hore Balcad ama Jowhar marka waxaan tijaaminaynaa nasiibkaaga halkan waraaqaha ku jira waa la ruuxayaa saysan macni isugu khaldamaan oo qofku nasiibkiisa uga dhex baaro hadiyad baa la isku siinaya hadiyada waxa bixinaysa Xanaan Beauty Salon marka nasiibkaaga soo aragtaa nasiibkaaga oo farasan mid kala soo no soo diyaar baan waana ku soo dhawaado walaal way ina su'aalku diyaar ma u tahay waxba kama qabo walaal haday mid wanaagsan tahay waayahay laba nin oo saaxiib ah ayaa laba gabdhood ay kala dhaleen kala guursaday marka labada gabdhood ay dhasha awlaadda ay dhalaan maxay isku yihiin tawaas walaal way fursad kala haysataa halkan waxa ku jira waraaqo hadiyado ayaa la isku siinaya qofka ku guuleysta hadiyadana waxa bixinaysa Salonka Xanaan Beauty Salon halkaana furaysa waxa kala soo baxaysa hal waraaqdaas haday kugu qoran tahay no waxba ma lihid haday yaas ku qoran tahayna hadiyad baa leedahay marka nasiibkaaga soo baxday oo iyana no ma ku soo aragtaa nasiib aad baan ugu faraxsanahay nasiibkayga adaa mudan waayahay waxa noo sheegtaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre fursad kala haysataa halkan waraaqaha ku jira waraaqahaas hadiyad baa lagu bixinaya hadiyadaasna waxa bixinaysa Xanaan Beauty Salon hadii ay aad waraaq halka kala baxday nasiibkaaga qabtaa hadii aad noo kala baxday hadiyad ma lihid hadaa yaas heshidna waad leedahay ma ku qanacsan waa ku qanacsan aad iyo aad baan ku qanacsanahay mid kala waxa soo baxday noo soo baxday waana ku qanacsanahay nasiibkayga halkaana ka sii wadaan leeyahay magacaaga maxaa Cabdullaahi Axmed waxa noo sheegtaa degmada Balcad maxaa markii hore loo aqoon jiray Balcad degmada Balcad waxa loo yaqaanay harag may organ ma soo gaarina way fursad kala haysataa maxay ahaytooy hadiyada la isku doonsiinaya halkaana waraaq kala bixi doonta hadiyadana waxa maxay ahaytooy barnaamijka kaga qayb qaadatay Xanaan Beauty Salon marka nasiibkaaga way yaas haday ku soo baxdo hadiyada leedahay haday noo ku soo hortana ma lihid no way soo baxay waa soo taagtay waan tu dhawaay su'aalaha ina su'aalkoodu diyaar ma u tahay diyaar baan maxaa loo aqoon jiray magacii hore degmada Balcad
ma garanayo su'aashaas. ma garanaysid ها waayahay fursad kale haysataa oo ah hadiyad ku helaysid halkan waraaqaha ku jira maxay ahayd toy hadiyadana waxa bixinaysa xanaan beauty salon bal nasiibkaaga bal ka waran see ma ku qanacsan tahay ها قناعسنا نو تقرن ka waran balka nasiibkaaga عادي وي نسيت واحد جرا وي ku dhawahay walaal su'aalina ku weydiin diyaar ma u tahay ha madaxweynayaal intee Soomaaliya soo maray maxamed afar Do me a favor, please. Get out of here. marka fursad kale haysataa oo aad hadiyad ku helaysid hadiyadaasna waxa bixinaysa xanaan beauty salon qaybteeda Garowe anaga iyo waxaan tustaaba noo baa ku qara noo hay soo aragtaa nasiibkaaga ku faraxsan aad baa u mahadsan adhowe magacaaga axmed xasan cali degmada balcad magacii hore loo aqoon jiraa laga rabaa garanayo waayahay fursad kale haysataa oo halkaan kaga faa'iideysan kartid halkaan waxa ku jira waraaqo nasiibkaaga xabad baa la baxaysa yaas haday ku soo baxdo hadiyad baad leedahay waxa ku siinaysa xanaan beauty salon qaybteeda Garowe hadii ay ku soo baxdo no waxba ma lihid haya nasiibkaaga ka war horta nasiibkayga dee waxa weeyaan soo aragtaa nasiibkayga wixii soo baxo ku qanacsanahay bal dadka tus waxa tusaysaa wixii ku soo baxa ayaa nala wadaagaysaa noo way soo baxay haye ka waran okay waa ku qanacsanahay su'aal ma wala dhawahay waaya magacaaga Naciima Ciise Xamed ina su'aalkooda diyaar ma u tahay ha waayahay laba nin oo saaxiib ah ayaa laba gabdhood kala dhalay labadii gabdhood bay isa siiyeen labada gabdhood awlaadeed dhalaan maxay isku yihiin saaxiibo hawas maaha waayahay fursad kale haysataa waa mahadsan tahay halkaan nasiibkaaga kala baxaysa horta soo aragtaa nasiibkaaga waa ku qanacsana ayaa waxaa ku soo baxay no way soo baxay ku qanacsanahay waa ku qanacsanahay magacaa yacquub degmada maxay ahayd toy balcad magacii hore loo aqoon jiray weligay ma tagin balcad sabab ma ni Soomaali Puntland baan ku dhashay garow wax iga weydii aad baad u mahadsan tahay halkaan waxa ku jira waraaqo nasiibkaaga ayaa kala baxaysa haday noo ku qoran tahay hadiyad ma lihid haday yaas ku qoran tahana waad leedahay barnaamijkana waxa bixinaysa xanaan beauty salon ayaa hadiyada bixinaysa marka nasiibkaaga anu yaanu ku saarinay askala baxaya nasiibkayga ka shanaya taasaan la baxay okay bal anaga kaamirada wallahi waa galaya suwar hal gacan baan leeyahay no aku qanacsanahay nasiibkayga qanacsanahay jawaab okay weeyaan magaca horta walaal imisa madaxweynayaal soo maray Soomaaliya dhan todoba su'aasha waad isku dayday halkaan fursad baa ku jirta hadii halkaan waraaqaha ku jira nasiibkaagu uu ku heeliyo yaas baa qaadanaysa haduu nasiibku ka heeliyana noo baa qaadanaysa hadiyada waxa bixinaysa xanaan beauty salon marka bal nasiibkaaga waraaq kale hooyo noo baa ku soo nasiibkaaga ka waran ayaan nasiibka okay weeyaan ku qanacsanahay dhaw faylaha su'aal ku weydiin diyaar ma diyaaran ha intee madaxweynayaal soo maray Soomaaliya sagaal madaxweynayaal marti halkaan fursad baa ku jirta hadiyad baad helaysaa waa marka aad yaas heshid hadii aan nasiibku ka heeliyana waa noo heshidna hadiyad ma lihid nasiibkaaga ka waran ka qanacsana nasiibkay ina su'aalkooda diyaar ma u tahay ha laba nin oo saaxiib ah haday laba gabdhood ay kala dhalaan isa siiyaan labada gabdhood maxay isku noqonayaan laba gabdhood ay kala dhaleen laba gabdhood bay isa siiyeen ay kala dhaleen ha awlaadooda maxay ahayd isku noqonayaan awlaadu ha walaalay noqonayaan
nasiibkaaga haddaba halkan waxaa ku jirta waraaqo nasiibkaagaa soo qabsanaysaa haddaan noo kuu soo baxo hadiyad ma lihid hadday yaas aad heshidna hadiyad baa lagu guddoonsiinayaa waxaana ku guddoonsiinaysaa xanaan biyintu sayl balna tuskor u soo qaad nasiibkaaga ka wada magacaaga abshir cabdi waxaa noo sheegtaa degmada balcad magacii hore loo aqoon jiray balcad weligay ma maqan xitaa argaayo weligaa ma maqan wiil Soomaaliyeed baa tahay waa inaad kala barataa dalka halkaa nasiibkaaga ka soo qabso noo hadday kugu qoran tahay ma lihid hadiyad hadday yaas kugu qoran tahana waa leedahay magacaaga barraacwil waaya inaan su'aalkooda diyaar ma u tahay diyaar baan waa meeqa madaxweyne soo maray Soomaaliya 9 baan filaya halka nasiibkaaga kala soo baxaysa hadday noo kugu qoran tahay hadiyad ma lihid yaas hadday kugu qoran tahana farta laga saaraya waxaana hadiyada bixinaysa xanaan biyintu sayloon waa ku kalsoonahay walaal ha ku qanacsan no walaal no waxa noo sheegtaa laba nin oo saaxiib ah ayaa laba gabdhood is siiyay nimanku waa saaxiibo labadii gabdhood awlaaday dhalaan maxay isku noqonayaan caruurtu walaalo halkaa waxaa ku jira waraaqo nasiibkaaga kala soo baxaysa yaas hadday kugu qorantay hadiyad baa leedahay hadiyaddaa waxaa ku siinaysa xanaan biyintu sayloon haddii ay noo kuu soo baxdaan nasiibka ayaa kaa hayliyey waxba nuguman maxaa horta dareemaysa nasiibkaaga nasiib wanaagsan baan dareemaya haye nasiibkaaga war maxaa ku aad baa ugu faraxsan noo baa soo baxday waan dhawaa degmada balcad maxaa loo aqoon jiray markii hore balcad ma garana waaye nasiibkaaga marka hadday noo kuu soo baxdo hadiyad ma lihid hadday yaas kuu soo baxdana hadiyad baa leedahay nasiibkaaga طبعا ابو ياسر مفكر بسم الله دبي هي الصوره هذيك واحد عليك يس maxaa kuu soo baxay saadi baragaay magacaaga yacquub baalda waayahay inaan su'aalkooda diyaar ma u tahay imisa madaxweynayaal soo maray Soomaaliya waxa soo maray 6 Get out of here, man. Shit, I'm saying. halka waxa ku jira waraaqo waxa ku qoran noo iyo yaas hadaa heshid hadiyad baa leedahay hadaan noo heshidna nasiibka ka heeliyay barnaamijkana waxa tamataaminayso ka qayb qaadanaysa xanaan biyintu sayloon anaga iyo miidiyaha marka iyo kaamirada say dadku u arkaan قالوا ما يخلى مين لا تطلع نقول هذول صدق no meeqa madaxweyne soo maray Soomaaliya 9 magacyadooda wax ma ka xusi kartaa ma waa ilowday halkan waxa ku jirta waraaqo hadday mid baad qabsanaysa dooranaysa hadday yaas ay ku soo baxdo hadiyad baa leedahay hadday noo tahana ma lihid waa iska qulqulaysaa horta nasiibkaaga ka waran nasiibkay waa wanaagsanaa jir maanta ولقى هذه waxaan meesha ku jiro noo waay waayahay waxa noo sheegtaa meeqa madaxweyne soo maray Soomaaliya waxa soo maray madaxweynayaasha soo maray 9 fursad kala haysataa oo aad jaayso ku heli kartid barnaamijkana iyo hadiyadaha waxa taamisay ama qayb ka qaadatay xanaan biyintu sayloon halka waxa ku jira waraaqahaasi mid baad ku nasiibsanaysaa hadday yaas ku soo baxdo hadiyad baa leedahay hadday noo ku soo baxdana waxba ma lihid marka bal nasiibkaaga نو باي سو baxday ana soo xumaa nasiibkaaga soo aragtay ama okay aku qanacsana ka wadigaya waayahay barnaamijka hore uga qayb qaadatay wax dhiba ma jiraan su'aasha adiga ay weydiinaysid baan u aqoon bay waayahay adiga hadda maadaama su'aal kuma weydiinayo laakiin waxaan rabaa nasiibkaaga inaad halka ka dooratid halkan waraaq baa kala baxaysa kala bax
waraaq haa waay mid laba waay kuwada wixii kaaga soo baxa hadduu yaas kugu soo baxo hadiyad baad leedahay hadday noo kugu sortay hadiyad ma lihid bal fur kala bixi ها كربح ها مصبح maxaa kuu soo baxay ها مصبح waa kasaa u qabo yaas baa kuu soo baxday ياس باي صباحي haye hadiyad baad leedahay marka maxaa leedahay nasiibkaaga نصيب كده haa waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay barnaamijka Suways iyo su'aalaha ka waran aad iyo aad buu fiican waayahay nuur waa qofkii ugu dambeeyay oo hadiyada ku guuleystay hadiyadana waxa bixinaysay Xanaan Beauty Salon halka waxa ku soo qornay waraaqo waraaqahaas waxa ku qornaa no iyo yaas qofku haduu dhaho hadiyad buu leeyahay nuurna wuxuu ka mid noqday dadkii hadiyadaha nasiibka u haye nuur dareenkaaga ka waran dareenka aad buu fiican haye aad buu fiican boqolkiiba boqol buu fiican aad baad u mahadsantahay hada mudan Xanaan Beauty Salon maxaa leedahay meelaha dumarka lagu qurxiyo waxaan jecelahay in lagu farxo maadaama adigu aad yar tahay oo aad su'aal badan ku weydiin karin nasiibkaaga ka waran qanacsanahay halkan waxa ku jira waraaqahaas mid baa la baxaysa haday noo kugu qoran tahay hadiyad ma lihid haday kugu qoran tahay yaasna maxay hayto hadiyad baa leedahay marka nasiibkaaga maxaa kuu soo baxay yes maasha Allah عبدحتين فؤاد جمع عبدحتين فؤاد جمع waxa ku guuleystay maxay haytay waraaqdii ay ku qornayd yaas nasiibkiisa Cabdixakiin aad baad u mahadsantahay waa lambarkii koowaad wali barnaamijku way noo soconaya hadiyada waxa bixisay Xanaan Beauty Salon mahadsantahay waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad ka wada hesheen barnaamijkii Suways iyo su'aalaha oo maanta uu ka duwanaa awal su'aalo baa nooga barateen laakiin maanta barnaamijku wuxuu lahaa hadiyada waxa bixinaysay Xanaan Beauty Salon su'aalaha dadka waa soo dhexdhigayna qof iyo nasiibkiisa yaas iyo noo waa ku qornaa yaas qofkii ay u soo baxday hadiyada ayuu nasiibkiisu u hiiliyay qofkii noo u soo baxdana hadiyad ma uusan lahayn haddaan su'aalihii dib ugu noqono dadka waxa weydiinay saddex su'aalood su'aasha ugu horeysa waxay ahayd sheeg degmada Balcad magacii hore loo aqoon jiray Taytayla loo aqoon jiray su'aashii labaadna waxay ahayd laba nin oo saaxiib ah haddii ay laba gabdhood oo kala dhalan ay siiyaan awlaaday dhalaan maxay isku noqon doonaan waxba iskuma aha taasna waa laga jawaabay su'aasha kale oo saddexaadna waxay ahayd sheeg madaxweynayaashii soo maray Soomaaliya waa laga jawaabay 9 madaxweynaha soo maray barnaamijku waa barnaamijkii Suways iyo su'aalaha halkaad ka daawanaysaana waa channelka Suways ka cayta isku dabaridka iyo kaamirada waa Cabdiweli Galayr aniguna waxaan Suways ka cayta inta barnaamij la mid aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo